السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار channelka ay ku xiran waa ina ducaale waa idi salaamay channelka ku soo biira subscribe saara insha Allah waa si fiican officially mar dhaw soo noqonaya ma aragtay insha Allah ku soo xirma laakiin waxa rabaa maanta wax yar inaan ka hadlo gabadhan iyo wiilkan walaalayaalow Soomaali hadaan nahay يعني xasadnimada ayaa nagu badan waxa arkayay gabadhan iyo wiilkan waxyaabo xun ma sheegan yes way sheegan dad akhlaaq xun ma yihiin yes dad habeen barkii soo gala oo qashin iyo balaayo ka sheekeey isfuulma soo ma aha yes laakiin walaalayaalow ilaa xadkaas in la gaaro anaga hooyooyin ah ilmana haysano foster care systemka iyo systemka muxuu aha wadamadan aan ognahay in ilmaha lagu dhibaateeyo oo guriyo badan xataa ilmaha lagu kufsado oo meelaha la geenayo xataa ay safe ahayn oo qaar xataa gaajo ay ugu baqtiyaan meesha qaar xataa la dilo ay ku dhex dhintaan aan ognahay oo la socono in aan ma aragtay dad ilmo yar yar oo masaakiin oo muslimiin ah aan la jeclaan ina meeshaas galino dad waxa arkay dhahay gabadha faamiligeeda dadkeeda jooga war gabadhan dadkeeda iyo faamiligeeda iskuma fiicna liana wiilkan markay guursataa li reer hebel weeye ma garatay reer hebel isma guursano saasa ma aragtay gabadhii lagu deeriyay saariga maqle waay laakiin markaan soo baaray waxaan arkay ninkan in uu reerkiisa xaafad qurux badan oo google-ka aan ka arkay qurux badan uu degan yahay reerkiisa uu ma arkin oo nin maamuushta uu yahay xaafad fiican oo welfare iyo tuugsi midna ahayn guriyo iyaga leeyihiin ay degan yihiin ee maasha Allah halkaas ku yihiin ay shantood ciyaal halkaas ku korsadaan marka ma waxay sameeyeen yes in loo aqli celiyo in la dhaho waxaan ha sameynina waa markii ugu horeysay ilmaha meesha soo dhigeen ma u maleynaayo ninkan iyo gabadhan in ilmaha wax ku sameeyaan ila ma ahan aniga laakiin ma dad ma aragtay akhlaaq xun yes wadad akhlaaq xun illa xadkas in la gaaro oo la yiraahdo ilmaha ha loo dhiibo dawladda systemka la geliyo wallahi waxba qaldan Soomaaliya waxba qaldan waa waxyaabaha Soomaalida sometimes يعني حتى لبا دمر marka istagaasho wax ugu horeeyo ay sameeyaan waxay isugu wacaan kuwa ilmaha labadii dumar oo istagaasho oo Soomaali ah kuwa ilmaha isugu wacaan intooda badan marka waxyaabaha aan xataa u jecleen in badan waa ila yaabtana maxaa waxyaabaha xataa qof Soomaali ah diris la noqdo u jeclaan waxaas waa I'm telling you dhibtooda iyo dhibtooda badan intay ku tarayaan intay ka goynayaan qofka Soomaaliga badan marka walaalayaal faamiligan ha loo aqli celiyo ha loo duceeyo waxa kaliya ku filneed ma aragtay TikTok in ma aragtay laga tuuro oo laga report gareeyo laakiin ilaa xadkan ilmaha la qaado ilmaha dad ilma dayacan uma eka ilma dhibaataysan uma eka muxuu ahaa kullee hadda deep investigation la furo waxa la sameeynaya koow marka case-ka la furo in ilmaha mid loo wareysto ma la idin taabtaa ma la idin dhibaateeyaa ilmaha aabihiin waxaan idin ku sameeyaa waxaas haday noo noqoto ilmaha waxa waa la iska daynaya ma garatay wax walba waxay leeyihiin baaritaan meeshaan waxa waay Canada iyo Mareykan iyo sida ilmahi waagi hor u qaadan jireen uma qaataan ilmaha waxa la isku dayaa xataa waalidkii ilmaha in mar walba la isku haayo xataa hooyada iyo haday ma arkino in systemka in ilmaha mar walba dadkooda dhex joogaan ayaa la isku dayaa marka Soomaaliya fudeedka iska daaya ma aragtay ciyaalkan masaakiinta ah gacanta u sii gelineysaan dadkaas sheeyaha la jeceshiin ka daaya marka walaalayaal iska dhaaf xaasidnimada iyo ma aragtay nacaybka intaan la eg maxay tahay I'm so shocked wallahi teeda kale imisa hooyooyin oo ilma laga qaataa YouTube ka dhex qaylinaya iyo social media ma kuwaas wax u qabataan imisa ilmood ayaa dhibaataysan ma kuwaas wax u qabataan hooyooyinka dhibaataysan ma wax u qabataan ciyaaladan ma wax u qabataan Soomaaliya iska daayay ma aragtay ilmahanayta system ka rabtaan inay gelisaan kuwa dhibaataysan already darbiyada taagtaagan caawiya hadda caawimo idinka tahay laakiinse waxa waaye reerkaanayti anshax xun yihiin yes anigu kuma raacsani laakiin ilmahooda in la qaado oo dawladda gacanta loo geliyo no wax fiican ma ahan waa la waanin karaa waa markii ugu horeysay saas sameeyeen laakiin waxa waaye walaalayaal ilmaha waalidkood wax u dhaama ma lahan ma fahamtay iyagana ilaahay waxaan ha ka soo hadeeyo fisqigan iyo balaayadan iyo waxaan ay ka sheekeynayaan ilaahay ha ka soo hadeeyo laakiin ilmaha seeti ma arkino kullee inta ilma la iska qaado la iska cararayo uma maleynaayo dad waxa hadda arkay waa la qaatay waa fiidan no ilmaha sas easy looma qaado marka insha Allah waa arkayna waxa ka soo baxa laakiin waxa waaye kullee Soomaali meel ay degan yihiin email joogan hala iskaga fogaado